ishu ka buka nina uurku ka buka nina dhagtu ka buka ninka naagta foosha xun la qaba ishu ka buka aad ma ibaantada markaasaan sorry alqalbu ghaib jism haadir problem family aad ma ibaantay maya dadku waa inay iska saraan maadaama sultaan siwaari dhaaf soo galay waa inay saaran israaf naga daalgalniyo warka xamar dhaafniyo sultaani anigu jawaan ninka la leeyahay laba bari baan kaga qaaday raacaniyo dadka meel gaadiyo roob leh aadiyad gulubaa ku dhaxyaala aadiyad hadda joogto Kampala waxa la galaa yiraahdo asagoo wax furay wallahi su'aasha ma garanay ninka wax leeyahay isleedahay waxa la dhihi karaa asaga wallahi waxa kullu wuxuu noqonayaa single buu noqonayaa markaas single asasi doob ahaan doob noqonayaa waxa mar labaad ii sheegay idinku baaqaya Ohio Garden oo ah meel inta lagu nasan karo loo soo dalxiistay karo lagu nasan karo marka waxaan leeyahay dhammaan waa salaamintiin asxaabta thank you very much السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان أصحابنا نقدر دعوانا يسجلنا لكنا شعتا برودكشن وحنا دلنا هاي ميل كستو الجوكتان وقت كستو أيدين تهاي وعن ونكسن داوديال وحنا ما تقبل دونا برنامج سؤاله وحنا هل كان كسو قدبين دونا ضد أدو بدن وعجيبة إنما إذا كيابين دونا ضد كان أنت بدن وحاولين دونا لبس سؤال وعجيبة الله إليها أتكوض يابين دونتان نرصع داوديال كاميرا دواساتا أنا أقول وادعي سنة فرسمدا iyo isku dubreedkana waa wariye Yaasir nala socdo daawadayaal waxaan barnaamijkan alla ilaahay qayb weyn ka qaadanaya restaurantiga caalamiga ah oo Ohio Garden ee Kampala ku taala dhabarka dambe ee Al-Qudus nala socdo daawadayaal like-ta subscribe-ta share-ta intuba waa xaqiin واتهاي داود يال برامج كنا وجود قلنا وقرن كسر وساتا برودكشن أديكو مقعد وكبلاوي مقعد واحد يا السلطان حسن سوار الذهب آدي والسلطان كاست أفريقيا السلطان وقصد المجال هذا كمبالا والنبض ورك ما حوسيته وليبه حتى دور يسيد وحن كقول الله يا أنت اللي قلنا تشربه أنت اللي قلنا تشربه عادي هل قلنا مع النص قبل يا كلا كيت يوتا واتو سلطاني صومالي أديك أحن يس كمبالا ميقد دكتور ميقد سنة دكتور وحن شوقة شنصرة ولي قبل كلك أحسن مسامرت أنيقو لا إله إلا الله حتى أبغى هيستا حتى قبل سنة يس حتى أبغى هيستا هاي سؤالك ويدين هي قبلها مركل فروح على هذا جروب لكن نك أسيب مركل وحفر محل هذا يا قبلها لا إله إلا الله محمد وحلا هذا حلا باص بالله يلا حلا باص معناها هان وأنا أفتقص بالله يلا وأنا نسأل الله إذا نقدر نخليه وأنا أفتقص هلك عرم لقي هذا يلا سجن واحد لقي حلا باص وعكس قلنا هاي جاردن أبيض هاي جاردن ومل كلك عشان أدجدتك جوجان يس إنما أنا عادي أنا بقول بس سلطان كولي بقاس dadka ma garanaysa ku kala dabaraan meesha laha ay gaadhin maxallada ay gaadhin waa meel aad iyo aad u wanaagsan waa meel dadku mahadiyeen waa meel aad iyo aad shirarkoodaan ku qabanaa waa meel fadhi wanaagsan anigoo compass inaan joogaa baan xusuusta markaan fadhiyo ha dhirta yar iyo waxaan iyo faysalka markaan arko waxaaban moodaa inaan dee caalamka meel ka mid ah fadhiyo ayaa la moodaa kaamirada adigoo fiirinaya hal gabay ama hal hees maanigu hayaan ku gabiyo la ilaaha illa meel baan ka doonaya waranu meel ka doon maayo meel ka doon maayo deelayda gabay waanigii daayay xidhay ibnahayga waa tan ka jaray dubugu geeraarka iminkay daruurihii diriiradoodii oo nabadda lagu doorsoo duur la toosaa nin waliba wuxuu doonayaa baa loo diyaar yahay ninkebaa dantiisa wixii dugle ka hadlaya taas waa qodobka labaada kale waxaan idinku oranayaa
صدق ما هو صدح أديات ودتك الشعب واحترام أديات صدح إلهي باكو نعه صح صدح للنبي باكو نعه صح صدح ناكتا باكو نعه أديات صدح طلقة باكو نعه صح صدح إلهي باكو نعه صلاة لانية صون لانية سكران إلهي باكو نعه صح صدح للنبي باكو نعه أيه رون لان رمي لان رفيق لان صح صدحنا ناكتا باكو نعه حمد لان همتي لان همبلان أيه صدحنا طلقة باكو نعه أيه deeq la'aan dagaal la'aan dood la'aan saddexna waxaa kugu naca xididka xaraga la'aan xishood la'aan xurmo la'aan saddexna waxaa kugu naca saddexna waxaa kugu naca saddexna saddex baa lagu kaaba aqoonta hadday kaa yartay aamus baa lagu kaaba xooluhu hadday kaa yaraadaan iimaan baa lagu kaaba aqalku hadduu kaa yaraadana irdaa baa lagu kaaba saddexdaana saddexdaasaa lagu kaaba saddex raggu waa ka siman yahay saddex raggu waa ku kala tagay waxaa dhaafa ka sabirkood waxaa soo socda ka tashigood waxaa istaga ka qabashadood saddexdaa raggu waa ku kala tagay saddexna raggu waa ka siman yahay magta magaca muuqa saddexdaana raggu waa ka siman yahay saddex 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 waa quus saddex waa quus saddexna ninku waa ka bukaa nin ishu ka buka nina uurku ka buka nina dhegtu ka buka ninka naagta foosha xun la qaba ishu ka buka aad may baantaa ninka naagta qurxoon qabale kaas fayskiis waa caadi ninka naagta foosha xun la ishu ka buka ninka naagta uurka naagta baalida qabaana uurku ka buka ninka naagta kulul qabaana dhegtu ka buka saddexdaas way bukaan midba meel buu ka buka aad may baantaa سؤال كلا كويدينا عادي ما سوشيال ميديا سيده أنو كويدينا واحد إركي كلا بركي سلا إكشك يا واحد إركي سادو جدو كلا بركي سلا إكشك لا إله إلا تعصبه ما هو وين بقى إركي كلا بركي سلا إكشك ولا يجي كم حنا كوريو الشكل من حوس سيده محل هذا قبل قروح بدري وين قروح بدرنا كتابنا عادي وحن كل شيء جاي وطانو وحناين عادي هذا عجيبة ما هبضن يا هولا بدن ماشون يا صاحبكي وطني وربان كوايا دنيدو واي سو كبليكات برغي هوري waa kala damajin برغي هوري aniga baash ma naafto ay goostay aniga baash naafto ay goostay aniga gaalay de ima leekada ana ka dheere baash karu tagniyo ايوه وتايتا فيديو وكل كعسيه وقروح بدل وربان كوايا حفيزكن والكي حفيزكن waa كمباله كان لوكي كمباله بيت بنج awla badan oo inu galayna caalamka si laynin ka daawado waxaan ku iri anigu danacana aad fahmo soo kala kacsan xasan ducaale cigal master badan baan aad soo dhaweynaa madaba dunida haday tigta saari weydo magacayga igu yeedhni saal sani waxa igu yaab ka badnaa baan ku sheegay su'aal yar waa la dhibe nin sarkaal anigoo dukaan iibinaya ayaan waxaan oo jeed dadka faktiyu ayaan oran jiray waxaan istiri faktiyu ay weyn maaha aad may baatay waaniga qaaday nin baan alaab badan iga iibsaday tankiyu baan si ku dheh asiga tankiyu istiri ku dheh faktiyu baan ku iri ninkii ay ana markaasaan sorry alqalbu ghaib jism haadir problem family aad may baatay marka waxaan idhi qalbigaygu waa maqay jismigaygu waa jooga markaasuu jism jiro markaasaan مرة بداية سلطاني والله يشيلوه مرقا مشاكل قاسي يقول حي بامكول مرقا سي ما عليش ما انا قوي تحسيدي مرقا وحن كل شيء سلطاني وحتى انين قراد له بقى عليه ان بقى انا عادي هن اد انه اسد ما فهمت شكاسك ايه وتشكاسك شكاسك بان كان ورمي وتجعلك كيف واسط احنا صح جعلك واسط احنا mid waa laba midna waa soo jireen midna waxa weeyaan hal ku dhig baa la yaabaa saddexdaas uu qaybsan gabigiisba marka aniga laba mid saddex balaas baa laga helay laba waa ka bugsaday mid baa hadda igu haray marka waxa laga yaabaa inaan kaana gabagabeeyo hawshii dhamaato aad ma ibaantay daaroskiga waa sideena waa duubeena waa kala kicinayna magaalada anigu midda labaad darawal ayu nooc champion walba anigu xaq hore ka baawur kasto geer saas u yeesha geerka boolaha ayu nooc baan wadaya islaamaha waa ku daraysa naga daaniyo ismiid darawal fasbaan hayniyo naga daaqani naga daaq ay ugu dambeyn maxaa baaq oo waxaan leeyahay aad iyo aad bay magaaladu nugu shirantahay magaaladuna aad iyo aad bay wanaagsantahay dadka aad baan u soo dhaweynaa youtube-kiinana aad iyo aad baan u soo dhaweynaa subscribe saarane maya dadku waa inay iska saaran maadaama sultaan siwaari daar soo galay waa inay saaran iskaraab naga daalkaniyo warka xamar dhaafniyo anigu jawaan ninkii laleeyahay laba bayr baan kaga qaaday raacaniyo dadka waa tahay daawadayaal weli barnaamijkeena ku guda jirnaa waxaan idin leenahay meel kastoo aad joogtaan galab wacan oo wanaagsan
akhyaar kale nala joogta waa kana managerkii ugu weynaa Ohio Garden iyo waliba asxaab kale farsamayaqaankii ugu weynaa xagga kombiyuutarada asagana waa kan wana la jooga lagnad sare nin weyn asagana waa kan wana la jooga waran su'aasha waxa ka soo bilaabaya geeskana ka soo bilaabi doona marka su'aal kaftan iska furan wax allaala waxa jecesha ugu jawaabi karta oo niyadaada gabdhaha markii la furo ama haweeneyda markii la furo waxa la yiraahdaa garoob ninka asigu markuu wax furo maxaa la yiraahdaa nafta magacaaga ku bilaabayo ugu horreyn dadka magacayga waa mawlid kullayba eray bixin ma lahan laakiin dee waa nin xaaskiisa furay ama naftarkiisuba waa garoob maxaa ugu diidaysaa asigana garoob waa garoob asaga aad su'aasha kale xigta waa ku raacina su'aasha kale xigta waxay leedahay ayadana cirka markii la kala baro wax barkiis la egsheeg cirka isagaaba adduunka dhan ku fadhiya waa barkiisa kale waa aad u baasiya walaalkeena asagana soo dhaweynayna ugu horreyn adigoo magacaaga ku bilaabaya ku soo dhawow Shataa Production waa mahadsantihiin maxamed xasan Shataa Production aad waa mahadsantihiin aad haye ugu horreyn adigana su'aasha waa mid la ceena waa ayadana isla su'aasha la waaye gabadha markii la furo waxa la yiraahdaa garoob laakiin ninka markii la furo asagana ama uu furo maxaa la yiraahdaa لو قرب واسنا waa garoob شو كلام ولا قرب waa isku raacay garoob قرب نيكاس aad haye cirka markii la kala baro wax barkiisa la fac isay kartaa adigoo aad ku raacin saaxiibka adigoo aad ku raacin waxa dhulka markii la kala barkiisa kala asna la eg dhulka markii la kala baro barkiisa la eg cirka barkiisa kala la eg aad ma sitin waa tahay waxaan ku suganahay wali daawadayaal Ohio Garden waxaan soo dhaweynaynaa markaan managerka guud ee Ohio Garden ahaana qabanqaabiyaha barnaamijkeenan isla mar ahaantaana ahaa qofkii su'aalaha noo soo diyaariyay ugu horreyn team Shataa Production adigoo ku soo dhawaanaya manager maxaa leedahay dhammaan dadka ku sugan reer Kampala meeradan Ohio Garden waxay noqotay goobta ugu sidan magaalada Kampala aad bismillaahir rahmaanir rahiim magacayga waa Cabdiqayr Axmed Maxamed dhammaan waa salaamaya asxaabta meel kasta joogan gaar ahaan reer Kampala waxaan leeyahay Ohio ku soo dhawaada waa meel aad u jeedaan dhammaantiin wada taqaanaan fadhi qurxoon idin diyaariyay cagaar ah waxa weeye nasashada ku fiican galab subax wax kastoo kala duwan aad ka helaysaan waxaan leeyahay soo dhawaada su'aalaha adiga soo diyaarisay su'aalahaas cajiibka ah oo inaba aan caadi ahayn maxaa ku keentay yow waxaan isku dayay inaan raadiyo waxaan su'aalo hore aan looga jawaabin ama aan mataqaanaa bulshada aan ka hore uga dhex jirin marka saasaan isku dayay inaan su'aal waxaan jeclaan lahaa labadan saaxiibada inaan su'aal weydiiyo laftooda labada su'aal weydiiso diyaar raayay labadan waxaan weydiin lahaa inay haddii isku dayaan waxaa haddaan wax daraasiyey wax ii soo baxday caalamka waddamada qayrna waa la gumaystay qayrna ayagaa wax gumaysteen sax magaceeduna annagoo isticmaalna luqadda Soomaaliga waddamadii la gumaystay magacooda waxay u dhawaaqayaan sidii dhadigii kuwii wax gumaystayna waxay u dhawaaqayaan sidii labkii marka asxaabta waxaan weydiin lahaa maxaa sababtaa keenay hadday caddayn rabaan tusaale waa siin karaa haye bismillaahir rahmaanir rahiim ilman hawl kuma jiro horta ducaysana ku salaamaya saaxiibkay Shataa sidoo kale asagana aad baan u salaamayaa yaasir sidoo kale asagana waa salaamaya dhammaan akhyaarta macaamiisha Ohio daawadayaasha nimanka ku xiran YouTube-ka Shataa Production ayagana waxaan leeyahay waa salaam baan u marinayaa halkan waxaan kaloo ka codsanayaa inay maadaama niman dhalinyaro ah oo hal abuur leh oo horumar iyo bulshada ku dhex jira maanta meel weyn ama meel sare ka taagan in lagu caawiyo subscribe-ka like-ta share-ta waayo waxyaalo wanaagsan oo bulshada wanaag u ah ayay soo bandhigaan intaas kadib su'aasha hadaan u gudagalo su'aashaas jawaab badanba ma lahanba dee haddii laba nin hadday dagaalanto ninka dhulka yaalla waa laga awood batay sooma hadda sidii doon inuu yiraahdo walaalo waa iga adkaatay daa way leedahay marka waa sidaas weey inuu qaatana uu ku khasban yahay sababtoo ah haddii laga awood batay wadan aan la gumaysan baa jira marka caalamku inta wax gumaysatay hadda inay rag u muuqatana waa loo jeedaa inta la gumaystayna waaba la gumaystay welina waa soo kicilaayeen marka in loogu yeero magacaas waaba ku saxan yihiin ba weli adigana soo dhawo walaalka ahla ma sinti ni Cabdiqayr hada ogaal su'aalo soo diyaariyo ma ka jawaabi lahayn Cabdiqayr qataad ka sameeyay marka
su-aashaas or waxaa dhihi lahaa horta waddamo la jebiyey oo xoog lagu qabsaday iyo waddamo maskaxiyan loo gumaystaa jiro aad iyo aad hadda qarnigan hadda aan joogno kale waddamada badanaa maskaxda la gumaystaa sax oo economic ahaan iyo waxaa laga dagaalaa iyo horumarkooda lala dagaalaa iyadoo dhinac diineed iyo loo soo marayo adiga maxaa isleedahay marka magac dumar ahaan iyo magac rag loo ahaan isticmaalay nin laga adkaaday magac dumar waa iska leeyahay marka saa umaleynaya aad iyo aad u maasantay laakiin maysan ahayn in muxuu ahaa maadaama raganimadu ma ahan qofaad ka xog batay inaad ku digatid marka way nagu digteen marka cid kalena ma ahan cidda u badan waa Afrika wey marka waa lagu digtay waana soo kiclaana marka waxaan ka codsanayaa inayba ama baan ku boorin lahaa wadamada Afrika inay meesha ka kacaano walba ay u muuqdaan noqon maayaane nin u muuqdaan aad u maasantay ugu dambeyn maxaa leedahay Cabdikhair waxaan leeyahay salaam horta u gudbinayaa Shata Production teamkiisa waxaan salaamayaa ducaysane Shata iyo saaxiibkeen Yaasir soo dhawaada waxaan leeyahay bulshadana waxaan ugu baaqayaa sida saaxiibkay sheegay مثلا كانال كاس شيرتيسا iyo like-ta inaan laga iloobin iyo subscribe-ta sidoo kale waxaan mar labaad idin sheegay idinku baaqayaa Ohio Garden oo ah meel inta lagu nasan karo loo soo dalxiistagi karo lagu nasan karo marka waxaan leeyahay dhammaan waa salaamintiin asxaabta thank you very much lamaana ay iscalmaday cid allaale cidii jecel cidii nasiina jecel cidii farxad jecel waa iman kartaa Ohio Garden waxaad ka helaysaa kafay inaba aan caadi ahayn waa goob aad u qurux badan sida idin muuqanaysa bilicda waxaad keeni kartaa biitsada nuucyadeeda kala duwan sambuus waxyaabaha alla ilaahay laga helo cuntooyinka fudfudud wax kasta ayaad keeni kartaa waxaanu kugu diyaaraa halkan shaqaale loo carbiyay sidii ay ugu adeegi lahaayeen customerka ama bulshada soo booqanaysa goobtan sida idin muuqata hab casriyeena ayaa lagu sameeyay ka duwan sidii hore kana xiiso badan halkan joogno waa Ohio Garden waa tahay wali barnaamijkeena ku guda jirnaa daawadayaal ugu horreyn yarbaan ka hornay laba kalmood aye adigoo magacaaga ku bilaabaya abwaan magacayga waxa la yiraahdaa Cabdi Axmed Diiriye waa abwaan aad haye waa meel gaadiyo roob leh aad yaad gulubaa ku dhex yaala aad yaad hadda joogto Kampala Ohio la galaa intaas aan ku oranay aad yaad hal su'aal aan ku weydiinaa kugu darsalaha gabadha marka la furo waxa la yiraahdaa garoob kaamirada adigoo fiirinaya laakiin ninka asiga markuu wax furo maxaa la oran karaa ilka dhigle maxaa lagu aaminaya ya ilka dhigle maxaa lagu aaminaya ninka dhigle maxaa lagu aaminaya ma la oran karaa ilka dhigle maxaa lagu aaminaya saas ma leeyahay saas leeyahay hada ma soo waxa guli daawadayaal barnaamijkeena ku guda jirnaa su'aalaha waxaan soo dhaweynaynaa markaan mid ka mid ah dhalinta ku sugan Kampala ku soo dhaw Shata Production adigoo magacaaga u sheegaya dadka saaxiib waa dhawaay Maxamed Xasan baa la dhahaa Maxamed Xasan adigoo kaamirada fiirinaya dad aad u fara badan ayaa ku daawanaya kuna taxamjin halkinan hal su'aal aan ku weydiinaynaa adna su'aal baan ku weydiinaya markay weydiiso oo anigana way weydiinaysaa aad iyo aad isku day waa kaay anigu waa isku day adina waa isku daysaa su'aashii haye su'aasha ku weydiinaya waxay tahay gabadha markii la furo garoob la yiraahdaa laakiin ninka asigu markuu wax furo maxaa la oran karaa gabadha marka la furo garoob baa la dhahaa ninku markuu isaga wax furo maxaad kala sheegaysaa gabadhii baa sheegaysaa ninku gabadhu ma furaya lageed ma furin asiga markii uu furayba uu ka tagay way kala tageen Soomaan gabadhii garoobay noqotay ninkii muxuu noqonayaa anaa ku sheegaya daba Soomaaligu uu badan yahay waana dheeg loo qaan waa markii baa la yiro uu aadaa koonfurna waxa looga yaqaanaa garoob waqooyina waxa looga yaqaanaa carmal ninka mise gabadha loo yaqaan gabadha ninka laba furin ninka asigu markuu wax furo maxaa la oran karaa oo gabadha furo nin laba reer isfahmi waaye weeyo gabadha ninku uu furo wayna kala tageen baa la dhahaa aad waa fikirkaaga haye ugu horreyn ku soo dhaw Shata Production adigoo magacaaga dadka u sheegaya dadweyne aad u fara badan ku daawanaya saaxiib Shata Production way mahadsan yihiin aad iyo aad bay mahadsan yihiin magacayga waa Cabdulla Cusmaan Barre TV-ga waa ku dhawahay barnaamijka galabtay su'aalaha dadka weydiinaynay laba ah waan isku dayi kartaa waa su'aalo iska faniya gabadha markii la furo waxa la yiraahdaa garoob laakiin ninka markuu wax furo maxaa la oran karaa adiga ahaan asleeda fikirkaaga
horta Soomaaliga eraya waxa jira aan dictionary ahaan loo helin baa jira oo Soomaali ahaan aan loo heli karin baa jira laakiin markasta waxa loo adeegsadaa ereyga ugu dhow ereyga ugu dhow loo adeegsan karaa waxa weeye gabadhu garoob baa la yiri ninkuna inuu garoob noqdo sax waxa dictionary ahaan eraya waxa jira Soomaaliga aan leeyahay dictionary ahaan laakiin Carabi ama aan adeegsano ama Talyaani aan adeegsano ama English aan adeegsano marka aanu kalmada waxaan aaminsanahay Soomaalidu inay u adeegsadaan ninkuna inuu garoob yahay inuu asaguna garoob yahay su'aal kale inta ku weydiinayna waxa sheegtaa cirka markii la kala baro barkiisa leeg cirka markii la kala baro wax barkiisa leeg waa qaybta kale oo laga baray cirka waa tahay wali barnaamijkeena ku guda jirnaa haatanna waxa alla ilaahay garabkayga taagan Professor Shaakir waxa uu kamid yahay professorada ku sugan magaalada Kampala caasimadda dalka Uganda waxaan ku kulannay haatan Ohio Garden uu alla ilaahay galabta uu soo doontayba inuu ku saaxiiyo halkan ama uu waqti ku qaato jawi aan ku qaataa sidii asxaabtiisa ku soo dhawow aad baan ugu dhawahay saaxiib ducaysana Shaata Production waa meeshan Ohio waxay ka mid tahay maxaa la yiraahdaa kafeetoriyooyinka iyo meelaha ugu fiican ee hadda aan ku caawin intaan Kampala joogna gaar ahaan Kisii maalmihii waa la iska mashquulsan yahay shaqo iyo waxbarasho galbihii meel aad fariisatood kafee iyo saaxiibada aad ku sheekaysataan aad u baahan tahay marka Ohio xaqiiqatan waqti fiican ay ku soo aaday in la sameeyo waana meel aad iyo aad u wanaagsan surface fiican ay leedahay dadka inta badan adeega oo maxaa la yiraahdaa shaqada qabtana dad aad iyo aad u tababaran oo loo carbiyay oo maxaa la yiraahdaa ku habboon waaye waata professor waxaan weydiinaynaa dadka laba su'aal sax ku weydiin karnaa adiga aan waa soo dhaweynayaa waxa la yiraahdaa gabadha ama haweeneyda markii la furo sax garoob ayaa la yiraahdaa markii uu sayigeeda uu furo sax laakiin marka sayiga asiga furo maxaa la oran karaa asiga marka asiga ahaan maxaa la oran karaa waa erey baa jira Soomaali ah hadda waa leeqsanahay haweeneyda marka la furo labay garoobnimada laba waaye markay caruur leedahay oo la furo waa garoob markay bilaa caruur tahayna waa carmal aad laakiin waxa jira erey Soomaali oo asaga ragga laftooda loo adeegsado waan leeqsanahay kaas ma hayo maxaa ku tilmaami leed dabcan asagana garoob kale waa tahay weli waxaa ku guda jirnaa daawadayaal barnaamijkeennii su'aalaha ahaa Ohio Garden waan ku sugannahay goobtii inaba aan caadiga ahayn aadka u kala kacsanayn ugu horreyn saaxiib waxaad ka mid tahay dhalinta Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Kampala ee caasimadda dalka Uganda adigoo magacaaga ku bilaabaya ku soo dhaw Shaata Production magacayga waxa la yiraahdaa Deeq Yaasiin Cali aad oo ku dhawahay walaal aad iyo aad u mahadsantiin Deeq Yaasiin hal su'aal ku weydiinayna oo iska faniya sax laba su'aal noqon doonta su'aalahan ku hormarnayna tan kale gadaal kaaga dhigayna sax su'aal ugu horeysa waxay tahay gabdhaha ama haweeneyda markii la furo waxa la yiraahdaa garoob laakiin ninka isagu marka uu wax furo maxaa la yiraahdaa ninka marka isagu furo waxa la yiraahdaa isagu wax furay والله سؤال شاف ما قراني لينك واحد ما حصل هذا وحال دي كده اسغا والله كل وحنا نقنيا سنجل بنقنيا مكان سنجل اساسي دوب اهان دوب بنقنيا وحقاق داوديال barnaamijkeena ku guda jirnaa ugu horeen waxaan soo dhaweynayaa mid kamid ah dhalinta ku saaxiinaysay kuna fiidsanaysay kuna allale jawi ku qaadanaysay goobtan Ohio Garden oo aad ka quruxda badan ugu horeen adigoo kaamirada fiirinaya magacaada dadka u sheeg magacaygu waa Sayid Maxamed aad iyo aad Sayid Maxamed ku soo dhaw Shaata Production hal su'aal aan ku weydiinaynaa inkastoo su'aalaha laba ay noqon doonaan waxaad sheegtaa hal su'aal oo allale aad u fudud waa su'aal fudud gabadha markii la furo waxa la yiraahdaa garoob laakiin ninka markuu asigu wax furo maxaa la oran karaa wallaahi inkastoo su'aashaas ay soo adag tahay laakiin waxaan filayaa waa isaguna garoobnimadii kulay buu dhinac ka raacayaa single father unde wali waxaan ku guda jirnaa daawadayaal barnaamijkeennii guntiisii gabagabadiisii ayaan isla soo gaarnay alleele waxaa ila taagan mid ka mid ah managerada ugu sarsareeya Ohio Garden iyo waliba sidoo kale mid ka mid ah shaqaalaha sida aadka dadka ugu shaqeeya uguna firfircoon Ohio Garden waxaan ku bilaabayaa ugu horreyn jimco wanaagsan manager adigoo magacaaga u sheegaya dadka ku soo dhawow Shaata Production maxaad leedahay dhammaan dadka ku daawanaya jimco wanaagsan bulshada qaaliga waxaan leeyahay horta assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh aad iyo aad u mahadsantihiin
waxaan aad iyo aad idinkaga mahadcelinaa soo dhawaanshihiina aad noo timaadeen mar walbana waxaan diyaar u nahay inaan si fiican oo wanaagsan idin martisoorno tan labaadna waxaan meesha ka salaamaa saaxiibkayga samigayga shaata magaciygana waa cabdiraxmaan maxamed cismaan maadaama shaata asna aan barasho wanaagsan marka bulshada ku xiran shaata aad iyo aad idin salaamay dhammaantiinba aad iyo aad u mahadsantihiin dhammaan bulshaweynta kambaalo ku sugan maxaa leedahay bulshaweynta kambaala ku sugan aad iyo aad waxaan leeyahay soo dhawaada ku soo dhawaada Ohio Garden fadhi wanaagsan saafis fiican shaqaale edeb iyo tarbiyayn leh iyo annaga iyo manageradii oo idin soo dhaweynayno gacmo furan idin soo dhaweynayno saafiskiina wax walba u baahan tihiin dalabkiinana waxaan diyaar u nahay inaan idinka xaqabtirno wax walba baahidiina aad u maastay waxaan soo dhaweynayaa markaan mid kamid ah shaqaalaha Ohio Garden sida idinkaga muuqataba dariiskiisa ku soo dhawow Shataa Production maxaa leedahay dhammaan dadka ku daawanaya adigoo magacaaga ku bilaabaya sidee dadka ugu shaqaysan aad iyo aad waa mahadsantihiin magacayga waa Nuur Yaasiin Cali aad baan idin salaamahay galab wanaagsan jimco wanaagsan boqosida noo soo boqoteen soogar la'aanta oo noo soo boqoteen wayna soo dhaweynaynaa ku soo dhawaada gacmo furan bulshada aad bay nagu xiran yihiin sida bulshadiinoo kale marka jimco wanaagsan ku soo dhawaada bulshadan waxaan leenahay waa jimco wanaagsan nogula ciida si wanaagsan aad ugu shaqayn doontaan hadday soo booqdaan dhammaan dadka kale ee hadda idin daawanaya kullu waxaan leenahay soo dhawaada Ohio waa hooyada Afrika waa hooyada qurbaha aan oro karnaa ku soo dhawaada gacmo furan waa goobta ugu shidan ee Kampala oo la iskugu yimaado lagu caweeyo internet free wifi free wax walbaba oo shaqaale aad iyo aad maalin walba full day shaqeeyaas ka jooga aan meelna aadin waqtigooda u hura aan xitaa qalabadooda ka doorto inay Ohio u shaqeeyaan marka waxaan leenahay aad iyo aad ugu soo dhawaada Ohio waxaan soo gaarnay gabagabadii waxaan ku sugannahay Ohio Garden waa goob aad u qurux badan kuna wanaagsan dalxiiska iyo waliba damaasaadka waxay ku habboon tahay inaad ku nasato adiga iyo waliba sawjadaada saaxiibtaada ciyaalka xaafaddana waxay yiraahdaan xabadaada waxaan leenahay barnaamijkan mid la cana intaan ku kulmi doonno Team Shataa Production cameraman Shataa saaxiibkeen qaban qaabiyaha ahaa wariye Yaasiir Yare iyo waliba Cabdiqayr oo ah managerka guud ee Ohio Garden tan iyo kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo